السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها قبلك قدومياشا دقموينكا تلياش سلقيادا تلياها نقلت حوق الدلك الصوماليات iyo gurubyada kale oo ka jooga degmooyinka oo xubnaha kala ah iyo teamka IOM teamka OMSOM iyo hay'adda wasaaradda amniga teamka ka jooga kulligiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan sharaf weyn ah maanta inaan kala soo qayb galo amaba aan furo training-kan isaga oo loogu tala galay sidii gudoomiye cilmi noo sheegay waxyaalaha qarxa oo yaani haraarigi ka ahaa. awalan waxaan rabaa inaan iraahdo intii ku dhimatay oo hadda noogu hadal dambeeyay cilmi aabihii iyo inta kale oo qiimaha leh nooga dhimatay Allahu naxariisto. cilmina waxaan leenahay sorry waa kulay geeri xaqa ayaa la maray. waxaan rabaa inaan wax yar ka kor istaago teamka جيما أو كسر وسارة أمنية أو هجامينه يحرسي وعنتان يعني سقط الدير وسوا شغيي لنا كاشضي إن أي فوليسو آيم كبعد آيم أيوسي كانتي أمس دن كسرده وهذا ما أنت نلجوجه أنت أسبوع حلنا هو مع سنتين سيجارة أو كلي لابا وحرمنا إنان ومهد علنوه إن على لي أنت كسر شقي سيارنتان هذا عن مقعبي إيوه دمان قرمدا مدوبي أو حميكا إن لقيتها بقلي حول بدن أو دل كان كدمان أما دباتوين بدن أو جلسدي وحلوقة قبل لها إن وحن رجين هي رنتان يدا ودقاقين تيم كان سكوحرا إن عن أنت لقو كوبين لقيتي بديوه إن هوش هذا العسلية سببته ودباتات دبعة أو تاجن oo ka taagan Soomaaliya oo dhan iyo isteediyada gaar ahaan isteediyada shabaabku aad u dhibaateeyay. maanta halkan waxa loogu qabtay 3 degmo degmada Xarardheere Baxdo iyo Wisil. waxaan rajaynaynaa meelo kalena oo kamidana in la gaarsiin doono iyo meel walba baahidu ka jirto. dalkan 30 sano wax ka badan ayuu dagaal galay, meel walbana dagaalkaas uu saameeyay. waxyaalaha qarxa iyo hubka haraadiisa iyo mid qarxi waayay oo caadi la isku ridaba meelo badan buu ku jiraa. waxa marxaati ka ah hadda midda uu taliyaha xoog uu sheegay in aqoontii ay gaarsiisan tahay in dhardhaar laga dhigto yaani shay waxyaalaha qarxa ay ku jiraan. halkaas markay ugu yartahay family 10 ka kooban ayaa ilaahay haduusan u keenin taliyaha ku dhiman lahaa. wax dhacana weeyo maalin walba way dhacdaa. si marka dhibaatadaas looga daba tago waxna looga qabto wasaaradda amnigu waxay u taagan tahay inay albaab walba u garaacdo iyo irid walbaba ayna raadiso cidii wax ka qaban lahayd. hay'adahan hay'ada ayaa ku shaqale oo shaqadan qabadkeeda iska leh. ayaguna waxaan rajaynaynaa inay nagala shaqeyn doonaan, horena noogala shaqeeyeen. waad mahadsantihiin. dhibaatada waxyaalaha qarxa ay keenaan hadda waxaan u maleynayaa maanta waa mid halkan loo fadhiyo. faham badanna dadku qaar waa ka haystaa in la sii iftiimiyo oo la sheegana waa mid maanta la iskugu yimid oo lagu hawshooday. tiimamka halkan joogo meelo fog ayay ka yimaadeen. maadaama ay ka yimaadeen waxa loo baahan yahay yaani in loo dhuuxo oo si miira loo dhageysto inta lagu casumay halkan oo joogta inay maaragtay ka faa'iideystaan. dabcan markii la leeyahay hal qabto training waxa loo soo xulaa numberka yar oo tirada gaaban waa numberka loogu talagalay inay bulshada ay ka yimaadaan ay gaarsiiyaan. hadaadan marka fahmin wixii lagu yeeray waa ayaan darra ka dhalanayso oo waxa weeye de waqtigii la geliyay dhaqaalihii la geliyay intaba macna ma sameyn. waxaan rajaynayaa in telefoonada la iska xiro inta maanta la joogo in attention-ka kale la qaadanayo la qaato. macalinka halkan looga keenay meesha fog waxa uu ka hadlayo in la fahmo si aad ugu gudbisaan kuwa dhibanayaasha oo dhibku maalin walba ku dhacayo geed walba ay joogaan. tiimka inta waa laga badin doonaa hadii ilaahayno. guri walba waxaan rabnaa in la gaaro, area walbana la tago. marka arintaas in loo feejignaado oo maskaxda la geliyo waa very important.
faa'iidada guud oo ay leedahay waxaad badbaadinaysaa waa gurigaagii adiga adoon meel kala aadin aabbaha iyo hooyada iyo wiilkay dhaleen iyo wiilkay sii dhaleen way waxaad guranaysaa kulligeen dad walaalaha baan nahay wada dhashay qof annaga naga mid ximintiis markay goodo kulligeen baa ximinta dareemayna si marka looga badbaado waxaan rabaa in maaragtay si fiican loogu foojignaado loo qaato tiimka arrintan soo diyaariyay iyo oo la keenay intaba waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaga fadhinaa waxqabad intaan ka sii badan galmudug waa dawlad goboleed kamid ah dawlad goboleedyada ugu dhulka weyn xag badeed iyo xag biriba marka meelo badan ayaa baahidan taala insha Allah macnaheedu ma aha hadii baxda iyo loo qabtay iyo saddexdan degmo in inta ay ku dhamaanayso baahida waa gudbinaynaa annaga ayaana la ka rabaa inaan gudbino ayaguna ay u sii gudbiyaan cid kale wax naga qaban lahayd waa hawl loo istaagay horena waa u soo socotay haddana waa la sii dardargelinayaa wasaaraddu waxay ku jirtaa dadaal dheer oo ah inay galmudug shaqooyinka ka quseeya iyo wixii u dheer ah oo ku dari karto inay qabato safarro joogta baan wadnaa meelo walbaan tagaynaa insha Allah waxaan rabnaa dhulka aanan wali booqan oo aanan tagin degmooyinka oo ay joogaan mas'uuliyiintii ka tirsanaa qalbiga khayr u sheega waa soo soconaa insha Allah wixii aan keeni karnana waa keenana wax fiicanna waa soo wadnaa meel aanan tagi doonin ma jirto meel aanan soo taaban doonin ma jirto waxa halkaygu soo gabagabeynayaa maalintu haynii wacnaato ujeedadii loo yimid sidii loogu talagalay hawfisho insha Allah marka uu dhamaatana waa la iska wareysan doonaa tiimamka ka soo qayb galay oo ka yimid meelaha dhaadheerna waa mahadsantiin adinkuna insha Allah magaaladiinii labaad baa timaadeen waa gurigiina meesha aad joogtaan maadaama aan keenay gudoomiyihii cilmi asaga ayaa marti loo yahay waxa laali wixii dhimanaadana qofkii wax tabanaya waa nala soo xiriiri karaa diyaar baan u nahay walaalaheen baa tihiin guryahayaga iyo gobasheeda ayaan ku marti qaadanaa kuna soo dhaweynana